Cristiano Ronaldo oo ka hadlay sharaxaadna ka bixiyay falkii aadka loola yaabay ku kacay kadib markii ciyaartii Manchester United iyo Tottenham u dhaxeeyay oo xanaaq dartiis garoonka kaga baxay isla markaasna gurigiisa u aaday ciyaartii oo dhammaan. Assalaamu calaykum saaxiibayaal, kusoo dhawaada muuqaalkan oo aan kaga daba geynayo sheekadii Cristiano Ronaldo ee baraha bulshada ee sportska iyo footballka qabsatay. Sheekadii ama ficilkii uu Cristiano Ronaldo ku kacay kulankii Tottenham iyo Manchester United kadib markii uu sida ogtihiin ciyaartii oo dhammaan oo maaragtay garoonka ka baxay xaafadiisa u aaday. Marka Ronaldo waa soo hadlay Instagramkiisa ayuu soo dhigay wixii uu yiri iyo waxa laga filan karo iyo ficilka uu sameeyay Cristiano Ronaldo iyo waxa loo fasiran karo iyo xaaladda guud ee Cristiano Ronaldo iyo Manchester United meesha ay marayso ayaan ka daba geey doonaa. haddii aad channelka ay subscribe ku saareen, channelka waa channelkaaga daato qof ciyaaraha xiiseeyo si aad u heshid wararkii iyo falaqaymihii ugu dambeeyay kooxdaada. channelka subscribe ugu cimaamad anigana igu dhiirigeli, waa mahadsanta. sida la socotaa masaaxiibayaal, dhacdo maaragtay aada loola yaabay social mediaha iyo maaragtay baraha bulshada ee sportskan aada u qabsatay ayuu Cristiano Ronaldo ku kacay kulankii Manchester United iyo Tottenham u dhexeeyo. United ay labadii Everton ku badisay kulankaas. United maaragtay kulan weyn oo ahay, ciyaarnada United ciyaaraan caadi ahna soo bandhigeen, mid lagu tilmaamay kulankii ama ciyaartii ugu fiicneed United xilli ciyaareedkan dheeshay ay kulankaas soo bandhigtay, labadii Everton ciyaarta ku badisay. laakiin intii taas laga hadli lahay maaragtay focuska la saari lahay ciyaarnada United iyo maaragtay taageerayaashooda u dabaaldegi lahayn guusha ay gaareen, taas beddelkeeda Cristiano Ronaldo ayaa showgii xaday. sida la socotaan Cristiano Ronaldo waxaa aragnay asagoo maaragtay ka baxay garoonka ciyaarta dhammaadkeedii iyadoo ciyaartii dhammaan dhowr daqiiqo socoto, isagoo ka xanaaqsan inaan kulankan lagu soo bilaabin ama inaan bedel loo soo gelin. xitaa inaan bedel loo soo gelin maahan, oo sida ay soo warisay majalada Athletics maaragtay Ronaldo intii uusan macallin Ten Hag uusan soo gelin Elanga ayuu damcay inuu soo geliyo ayay leeyihiin. Ronaldo waa diiday in la soo geliyo oo xilligan maxaa ii soo geliyo taagan ama maxaa ciyaartii ugu soo bilaabi weyse. marka ninka Ronaldo ahay garoonka keliyana kama bixina sida ay majalada aan sheegay soo warisay. maxaa la yiraahdaa, waxaa la islahay xirada maaragtay garoonka ka baxo qolka labiska ciyaarada kusii sugay waxaas, laakiin taas dhama dhicin. Ronaldo kabihiisa iyo boorsiisa u qaatay xaafadiisa toos u aaday ciyaartii socota. marka Ronaldo filkaas uu ku kacay aadaa loo dhaliilay. maaragtay kubadda cagtana haddii aad ogtahay iyo haddaad ogeynba oo macnaha internationalka ah waa xushmad darro ama waxaa loo yaqaanaa anshaxumo in xitaa ciyaaryahanku haddii uu dhaawacmo, haddii dhaawaciisu ahayn mid weyn ama treatment weyn u baahan oo isbitaal iyo waxaas aan loo qaadayn, inuu maaragtay uu qolka labiska toos u aado ciyaartii oo dhammaan, xitaa taas anshaxumi karta. waa xitaa ciyaaryahanku hadduu dhaawacmo waay. waxaa laga yaabaa mar badan inaad kaamirooyinka iyo tviyada ciyaaraha ka daawad ku aragtay ciyaaryahan dhaawac inta lagu baxshay maaragtay lagu dabiibaayo faashado iyo baraf iyo lagu halaga saarsaarayo benjiga maaragtay dhexdiisa lagu sameynayo. sababtaas loo yeelaa waxay tahay waa xushmad darro inaad aad garoonka ka baxdid ama aad qolka labiska xitaa aadid. inaad garoonka ka baxdid warkeeda iska dhaaf. marka Ronaldo qalad weyn ku kacay xilliga uu ku soo aadayna runtii xilli xun oo ahay. haddii ciyaarta Manchester United laga badli lahaayoo kale, markaas xoogaa waxaa la moodi lahaa inuu ninkan uu leeyahay ciyaarta waxaan ka bedeli lahay maaniga iyo Ingiliis sidoo kale. laakiin kooxdaadii oo badinaysa oo ciyaarinadii saaxiibada ay dabaaldegayaan inaan adigu xanaaq dartiis maxaa aniga la ciyaarsiin waaye, taada aad ka fiirsatid danta guud maahan, taada aad fiirsatid maaragtay wax fiican maahan. Ronaldona sida aan ognahay maaragtay United sanadkan inuu ka tago rabay, xaaladda guud kuma faraxsano. macallin Ten Hagna maaragtay qaabka u dheelo iyo filosofigiisa kuma soo baxaayo, mana anfacayo kooxda. marka sidaan ognahay United Ronaldo marka uu u ciyaarin ayay fiican tahay sanadkan, inkastoo sanadkii hore uu ahaa ciyaaryahanka ugu goolasha badan oo 24 gool uu dhaliyay. haddana sanadkan Ronaldo uu yahay nin maaragtay gool dhalinta ku fiican oo mar walba natiijo keeni karo. haddana sanadkan United iyo macallin Ten Hag filosofigiisa iyo qaabka United u dheesho marka la fiirsho, United waxay fiican tahay marka uu Ronaldo ka maqan yahay. taasna macnaheedu ma ahan in Ronaldo maaragtay uusan ciyaaryahan fiican ahayn ama uusan gool dhaliyo ahayn ama uusan maaragtay aan la isticmaali karin. laakiin faktiga jiraa wuxuu yahay macallin Ten Hag wuxuu rabaa qof kubadda raacanayo, ciyaaryahano ordaayo, spirit iyo maaragtay Ronaldo waxaas dhama samayn karo. marka macallin Ten Hag hadalkiisa waa cadeeyay Ronaldo maaragtay kooxda iyo qaabkan u dheelo maaragtay kuma soo bixay siduu uu taagan yahay. haddii aan kuu baahdo oo kaa maarmi waayo ayaan ku safaa, haddaan kuu baahnayn oo kaa maarmana waa kaa maarma ayuu taagan yahay. marka Manchester United marka iyadoo ka falcelinaysa falkii Cristiano Ronaldo ku kacay oo xushmad darrada ku ahay kooxda, ciyaaryahanada iyo macallimiinta iyo guud ahaan maaragtay taageerayaasha xitaa Manchester United, waxa ay go-aan ku gaartay in maaragtay Ronaldo maaragtay laga xadido inuu kooxda la tababarto. welibana waxaa laga reebay shaxda kooxda la dheelaysa kooxda Chelsea kulanka weyn ee maalinta Sabtida la dheelayo. marka sidmanta ay kooxda maanta soo saartay ay saas ku leedahay. Ronaldona waxaa maaragtay la sheegay warka soo baxay sheegay xitaa in 3 kulan oo maaragtay soo socota la ganaaxay oo kooxda inuusan la tababaran maaragtay lagu ganaaxay, oo xitaa waxaa la sheegay in maaragtay fine ama maaragtay lacag xitaa lagu ganaaxi doono.
laakiin Ronaldo asaguna waa soo hadlay Instagramkiisa iyo post soo dhigay asagoo maaragtay sharaxay wixii dhacay isla markaasna wax xoogaa raaligelin u bixiyay wuxuuna yidhi sidaan mar walba sameeyey waayahayga ciyaarista kubadda cagta waxaa isku dayay inaan u noolaado una dheelo anigoo xushmad u haaya saaxiibaday dadka wax ii xaysiiyo ama wax u xaysiiyo macallimiinta iyo weliba taageerayaasha taas isa bedelin ismana bedeli doonto waxaan ahay qofkii 20 sano ee professional footballka u ciyaarayay sida xushmadda leh xushmadduna mar walba waxay ahayd qayb muhiim ah oo ka mid ah go'aamada aan qaato anigoo yar ayaan bilaabay ciyaaryahanada iga waaweyn igana khibrad badan mar walba tusaalahoodu muhiim ayuu ii ahaa sidaas darteed markii aan soo weynaaday waxaan mar walba isku dayay inaan tusaale u noqdo ciyaaryahanada yararka ah ama kuwa yaryarka ah ee u dheela kooxihii aan soo matalay dhammaantood nasiib darrose taas mar walba macquul maahan mararka qaar waxaa laga yaabaa kuleylka xilligaas jira inuu kaa guulaysto oo saameyn kugu yeesho hadda waxaan isku dayayaa ama waxaan dareemayaa inaan u baahanahay inaan shaqada aan ka wada Carrington sii laabo saaxiibadayna aan taageero isla markaasna aan diyaar u ahaado wax walba mar walba oo la ii baahdo in culaysku naga guulaysto ma ahan option marnana ma ahayn tani waa Manchester United anagoo ah ayaan istaagi doonaa mar dhow waan isku soo laaban doonaa sida hadalka Ronaldo oo soo dhigay bartiisaas maaragtay Instagramka ka muuqata saaxiibayaal wuxuu u muuqdaa in uu maaragtay acknowledge gareeyay ama uu qirtay inuu qalad sameeyay waxa uu ku kacana aysan ahayn wax la qaadan karo asagana maaragtay uusan u qalmin inuu waxyaalahaas ku kaco sida uu sheegaba maaragtay isagu wuxuu example u yahay ciyaarno badan oo waaweyn iyo dad xitaa kubadda cagta aan dheelino Ronaldo influence-giisa kubadda cagta xitaa waa ka badan yahay marka isagoo nin saas ah inuu maaragtay uu saas sameeyo qalad weyn ahayd weliba qaladkaas kaliya ma ahan inuu kooxda iyo ciyaarnada ka galay laakiin taageerayaasha laftooda ayuu ka galay aan dhihi karaa Ronaldo United iyo asaga taariikhda ka dhexeeda waa ognahay sida ay tahay legacy-ga uu ku leeyahay waa ognahay sida ay tahay marka inuu maaragtay hadalkiisa wuxuu ka dhigan yahay inuusan rabin inuu legacy-gaas iyo maaragtay waxaas creditkaas United u yaalo uusan baabi'in oo maaragtay xitaa haddii uu kooxda ka tagayo ama macalinka iyo qaabka wuxuu wada isku dhacsan yihiin oo xaaladdu xun tahay ma rabo inuu maaragtay sawir xun uu dhiibo kooxdana si xun uga tago marka hadalkiisa wuxuu u muuqdaa waxa laga arki karaa inuusan maaragtay xoogaa sida muuqato kol ciyaaryahanada uu raali geliyay macalinkana uu raali geliyay laakiin taas macnaheedu maahan inuu hore kasoo laabo doono waxay u muuqataa in Ronaldo uu maaragtay ganaax uu aqbali doono tanna waxay u muuqataa inuu xoogaa hadalkiisa raaligelin uu ka wado oo xoogaa excuse samaysanayo uu leeyahay kuleelka iga batoyo waxa uu isceli waaya maahane nin saas sameeyay Samuel Corona uu leeyahay taageerayaasha xoogaa niyadda ugu dhisaya laga yaabaa laakiin sida muuqata United iyo Ronaldo waa u kala dhamaatay uma muuqato qaab Ronaldo maaragtay United hadda ka bacdi uu maaragtay ugu sii dheeli doono kooxda heshiis uu kula jiraa sanadkan inuu tago isku dayay laakiin kooxo soo doonta ayuu waayay macallinkuna xoogaa inuu riskigaas qaato Ronaldo iska diro maxaa la yiraahdaa strikerna uu dib u qabo ciyaarnada ka dhaawacmaan barashkaas soo saaro xoogaa waxaad moodaa inuu diidayo Ronaldo Yusuf ii dheelin laakiin ha joogo camal ay ka aheedo asaga si aan loogu eedeyn inuu Ronaldo diray marka macnaheedu wax fiican uu sameeyay Ronaldona maaragtay inuu ciyaaro iyo inuu si ciyaarin tan haaga ku xiran tahay tan haaga go'aankaas iska leh haddii uu u arko inuusan maaragtay shaxdiisa iyo qaabka u dheelo uusan anficayno kooxdu asaga la'aantiis ay fiican tahana ma dheelsiinayo oo hadal hadda uu soo dhigay inuu garoonka ka baxay wax macnaa soo ma kordhinayso haddii uu u arko inuu kulamada qaar dheelsi karan inuu dheelsiyo ayaa laga yaabaa laakiin sheekada gunteedu waxay tahay Ronaldo United inuu sii joogo kuma faraxsana maxaa la yiraahdaa sanadkan inuu tago waa rabay laakiin waa u suurtaabi weysay haddeerna maaragtay in arrintan ay dhacayso wax muuqday mar walba ahayd Ronaldo maxaa yeelay inuu bench galo oo ilaanga iyo bench u galo iyo maxaa la yiraahdaa Rashford oo weer dheelsiinayo maaragtay yeeli maayo xilligiisii asaguna maaragtay inuu xilliga uu ku jiro oo aqbalo oo maaragtay inuusan ninkii uu ahaa jiray uusan ahayn oo yeelo maaragtay sahal uma fududa Unitedna ma anfacayo ayaa la dhihi karaa xilligan la joogo marka la fiirsho ciyaarnada ay haysta iyo qaabka macalinku u dheelo iyo qaabka maaragtay uu rabo in kooxda u dheesho marka Ronaldo iyo United maaragtay hadalkaba xoogaa hala jilciyo oo hala heshiiyo maaragtay gacmo maaragtay hoos loo dhaqo laakiin sida muuqata sheekadan waxa waaye meel ay kasoo laaban karta ma joogto Ronaldona ganaaxiisa uu iska qaadan doonaa taageerayaashana uu raali geli doonaa ciyaaryahanadana uu raali geli doonaa he will act like professional uu yahay marka si uu shumcadiisa isaga hadleen ayuu waxaan u samaynayaa laakiin 100% Ten Hag iyo waxa uu rabo xushmad uma hayo kuma faraxsana haddii uu xushmad u hayo ama kooxda iyo waxa ay samaynayso uu rabana iyadoo kooxdii badinayso oo Tottenham garaacayso oo bandhigii aan ogeyn ay soo bandhigtay maaragtay xanaaq dartiis uma soo bixi lahayn ciyaarnadu u sabci lahaa marka Ronaldo inuu tago rabaa inuu January bixi doono inuu u badan tahay haddii koox soo doonata la helo
inuu bench ku fadhiyo kuma qanci doono inuu World Cup ku ciyaaro rabaa. Marka United iyo Ronaldo sheekadooda maaragtay halkan kuma dhamaanayso, inuu January bixi doono aniga ila ag tahay. sheekadaana waa hadal maaragtay taageerayaasha niyadda lagu dhisaayo oo rabo inuu dignitygiisa iyo legacygiisa ku difaacdo. Marka waa arki doonaa waxa dhaca January. sheekada Ronaldo waa arki doonaa wax kasoo kordha. waa Cabdikaafi Cabdullaahi. Assalaamu calaykum. channelkana subscribe ka saara, waa mahadsantiin.